waxaan usoo galay halkan in aan uga jawaabo dhalinyarada qaarkood oo su-aalay soo weydiiyey sida suxufiga weyne cabdicasiis iyo wariye daadir faarax. marka waxay igu weydiiyeen kulanka dhacaya maalinta khamiista ee isaga hor imaanayaan kooxaha Man City iyo kooxda Liverpool ee ka tirsan Premier League dalkaas Ingiriiska. run ahaantii su-aalaha ay isoo weydiiyeen waxaa ka mid ah maxay uga dhigan tahay kooxda Liverpool kulanka berrito khamiista ah oo ku beegan 2 bisha July maxay uga dhigan tahay Liverpool koox ahaan. run ahaantii waxay ahayd su-aal aad u weydiin dhalinyarada ay iisoo tikis gareeyeen. haddiise aan uga jawaabo, kooxda Liverpool waxay uga dhigan tahay kulankaasi ee maalintaas dhacaya iyo guusha hadda ay ka gaareen dhinaca Premier League waxay uga dhigan tahay iyadoo Liverpool ay dib ula soo noqotay sumcadeedii iyo magaceedii ay ku lahayd dhinaca kubadda cagta ee dalkaas Ingiriiska. waayo horyaalka dalka Ingiriiska ama Premier League ku guuleysadiisa Liverpool wuxuu ka maqnaa muddo 30 sannadood ah oo waxa ugu dambeysay inay ku guuleystaan berigii Premier League magac kale uu lahaa oo ahaa Barclays Premier League. dhinaca kale Liverpool waxay uga dhigan tahay guusha ay sanadkan ku guuleystay Premier League waxay uga dhigan tahay in ay magac weyn iyo boos fiican ama kaalin fiican ay ka soo gashay horyaalka dalka Ingiriiska hanashadiisa. waxay Liverpool hadda sanadkan guushan ay ku guuleystay horyaalka waxay uga dhigan tahay in ay tahay markii 9-tobnaad waxayna sidaas ku gashay kaalinta labaad. waxaa kaga horeysa oo keliya kooxda Man United oo iyada ku guuleystay Premier League ilaa iyo 20 jeer. haddii aan eegno oo aan ku dayno dhinaca kooxda bal xagga tababaraha haddii aan eegno, tababara Jurgen Klopp oo u dhashay dalka Jarmalka isagana waxaad moodaa sumcadiisa inay aad u soo banbaxday oo waa maray sanadkii hore wuxuu u qaaday kooxda Liverpool koobka UEFA ayuu u qaaday, sanadkan wuxuu u qaaday horyaalka Premier League ayuu u qaaday. taasi waxay la micno tahay inuu la mid noqday tababarayaashii hore ee Jarmalka ay iyagu magac weyn ku yeeshay dhinaca kubadda cagta sida Heinkes oo sidan oo kale isagana kooxda Real Madrid ugu soo celiyey koobka horyaalada ee Yurub oo ay ku guuleysteen sanadkii 1998 kadib markii finalka ay ku dugteen kooxda Juventus, iyadoo markaa Real Madrid markii ugu dambeysay oo ay ku guuleystaan UEFA ay ahayd sanadkii 1966. waxaan dhihi karnaa waa berigii Ingiriiska ay ku guuleysteen koobkii kubadda cagta ee adduunka ee berigaas magaciisu ahaa Gold Be Remit oo markii dambena Brazil ay toos u qaadi doonto sanadkii 1970 maadaama 3 jeer ayagu ay ku guuleysteen. kadibna koobka FIFA ayaa markaasi taariikhdiisa dib loo bilaabay oo ilaa hadda la ciyaarayaan. marka waxay kaloo guusha Jurgen Klopp ay la micno tahay sida guushii uu soo hooyey tababaraha reer Jarmalka ee magaciisu ahaa Otto Hegel oo isagu xulka dalkaasi Greega sanadkii 2001 inta uu qabtay soo gaarsiiyey sanadkii 2004 ciyaaraha kama dambaysta ee kooxda xulalka qaaradda Yurub. sidoo kale waxay la micno tahay guushii uu soo hooyey Joachim Löw sanadkii 1914 kadib markii koobka FIFA uu qaaday dalkaasi Jarmalka. su-aasha kale ay isoo weydiiyeen dhalinyarada waxaa ka mid ah kulanka dhacaya berrito ee khamiista ah bal noogu waran haddii looga badiyo kooxda Liverpool. taasi waxay micno ay ku fadhido ma lahan oo wax saameyn ay ku yeelanayso guusha kooxda Liverpool ee Premier League sanadkan ma jirto. waayo Liverpool waxay qaaday horyaalka sanadkan ee dalka Ingiriiska 2019-2020 waxay qaaday khamiista dhaweyd aynu soo dhaafnay kadib markii kooxda Chelsea 2 gool iyo gool ay ku dharbaxday kooxda Manchester United. sidaa darteeda kulamada hadda ka harsan Premier League waa 7 kulan. 7 kulan haddii Man City ay ku soo wada badiso wax micno ah oo ay u sameynayso ma ay jirto, sababtoo ah farqa u dhaxeeya hadda ama haatan ayaa waxaba uu yahay 23 dhibcood. waxay kaloo dhalinyarada ay soo weydiiyeen su-aal kaloo ahayd
maxamed salax ma laga yaabaa inuu ku guulaysto koobka gooldhalinta ama kubadda dahabiga taasi waa mid ku xiran tababarihiisa Jurgen Klopp waayo tababarayaasha alaaba markii ay heerkan oo kale ay gaaraan ama kooxdood ay ku guulaysto almost iyadoo aanay tartanka uusan dhammaanin waxay sameeyaan garoonka waxay ku tijaabiyaan ciyaartooyda keydka ayay ku tijaabiyaan marka haddii Salax aan la safin kulamada soo socda aan la safin waxaa laga yaabaa in xagga goolasha uu ku hogaamiyo xidiga u ciyaara kooxda Leicester City Jimmy inuu oo hadda ka horeeya isaga 2 gool ah ayaan filayaa inuu qaado koobka gooldhalinta hase yeeshee haddii tababara Jurgen Klopp uu Salax uu ka qayb geliyo kulamada soo socda waxaan u malaynayaa Salax inuu dhalin doono goolal fara badan markaana uu qaadi doono hase yeeshee inta badan tababarayaashu iyagu waxa ay daneeyaan maslaxadda kooxda oo ma eegaan maslaxadda gaarka ee ciyaartooyga marka haddii Jurgen Klopp uu u yara naxariisto uu la tacaatufo maxamed salax waa laga yaabaa inuu koobka gooldhalinta qaado haddii laakiinse uu eego danta guud ee kooxda uu eego oo is yiraahdo ku tijaabi ciyaartooyda keydka meeshna waxaa laga yaabaa marka in arrintaasi ay wax badan ay ka bedesho waxaan filayaa marka in bahweynta kubadda cagta gaar ahaan suxufiyiinta isoo weydiiyey su'aalaha ee tekiska ii soo dhigay in intaas ay idinkaga filan tahay idinkoo ku mahadsan intaa kadib waxaan jeclahay in aan u hambaliyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba maadaama aynu ku jirno maalmihii xorriyadda gaar ahaan 1 Luulyo iyo maalintii midnimada 2 gobol waqooyi iyo koonfur oo ummadda Soomaaliyeed ay maanta ay u dabaaldegayso mahadsanidin